guddida degmadani ceelbu ee gobolkani sanaag oo kaashanaysa haweenka afarta xaafadeed ee degmadani ceelbu iyo weliba ganacsatada culimaadudiinka iyo dhammaan bulshaweynta kale ee ku nool degmadani ceelbu ee gobolkani sanaag oo sameeyey isku tashi markaasi loogu quudinayo dadkii ka soo xirooday abaarihii dabada dheeraa ee haatan ka jiray gobolkani sanaag gaar ahaan 67 qays oo ugu dambeeyey oo soo xirooday dhawaanahan ayaa bulshadu waxay maanta u qaybisay halkan waxaan ku haynaa maanta masaaciido magaaladu iska ururisay qaybaha kala duwan oo laga soo sheekeeyay insha Allah maantana waxaan ku wareejinaynaa haweenka afarta xaafadood oo degmada iyo ururka midnimo si ay u sii gaarsiiyaan maxay ahayd toy cidii loogu talagalay oo barnaamijkan mudnayd insha Allah haddii aan waqtigu isbedelin oo raxmad ilaahay dadkan soo gaarsiin ma noqonayso markii u horeysay oo maxay ahayd dadka wax loo ururiyo insha Allah waxaan jecel lahay inaan dadka laga warhayo mar walba cidda liidato laga soo warbixiyo la isuna taago si loola qaybsado waxa weeyaan danta yar ay ku jiraan insha Allah xagga kalena biyo la'aan waa jirtaa biyo laftigooda waa u baahan yihiin raashinkan ay tamadan kooban baan maanta silaan ay gudbiya ilaa 67 qoys saasaan ugu wareejinaynaa haweenka bismillaahir rahmaanir rahiim maalmahan sidii lala socday waxa ka socday magaalada Ceelbu oo loogu ururinayo dadka baahan ee tamarta daran ee dabka sixsan yahay magaalada Ceelbu xaalad abaareed ayaa ka jirta gobolka gaar ahaan magaalada Ceelbu dadka degan magaalada ayaa u kaceen dadkooda muxsiniinta ah haday ganacsato tahay haday culimaadudiin tahay haday haweenka tahay haday ururada tahay waxaana la soo ururiyey raashin isku qaybsan bur iyo bariis iyo baasto burka iyo bariiskaas reerkiiba waxaa la siinayaa 67 qoys ayaa hadda la soo diiwaangeliyey oo dadka ugu tabarta liita Ceelbu oo dabka saxsan yahay oo beeska koowaad loogu talagalay in reerkiiba la siiyo 25 kiilo oo raashin ah 12 kiilo iyo bar daqiiqa iyo 12 kiilo iyo bar bariisa iyo 2 kiilo iyo kiilo ah baasto inta ayaa la soo ururiyay raashinkan waxa soo bixiyay dadka degan magaalada Ceelbu haday ganacsato tahay ururka midnimo la yiraahdo ururkan oo ka kooban 20 qof 20 kaas oo ku midoobay inaan inaan ka shaqeyno nadaafadda magaalada sidoo kale inaan u dhigano lacag qaadaan oo $1 aan ku kaalmeyno walaalaha iyaga ama dhexdeeda ha noqoto ama wixii naga gudubsan inaan ku kaalmeyn karno aan ku qalbayno inta aan ku kaalmeyno aan waasaasna ururkan midnimo la yiraahdaa waxaan markii hore ku midownay hagbadii yareed goortii noo xidhay misna waxaan ku isniri $1 aad iskaga ku kaalmeysaan wixii idinka itaal daran ama liita sidii loo kala liita aad u qaban kartaan halkiina $1 bishii waa $20 $20 ama laba isu gaadho ama saddex isu gaadho inta inaad ku kaalmeysaan bulshada wixii tamar daran walaalaha ee muslimiinta ah ee baahan ee abaaruhu ku dhaceen inta inaan ku kaalmeyno ugu dambeyntii ka faa'iidaystayaashii danyarta ah ee dhawaanta ka soo xirooday miyiga ayaa u mahad celiyey guddida iyo ganacsatada iyo weliba bulshada maanta soo gaarsiisay raashinka kan ilaahay hasiyo waa u baahanayn ilaahay khayr ugu bedel waan gartay marka raashinka intee lagu keenay raashin leeg halay kale sokor iyo daqiiq iyo kiilo baasta waan gartay markaas ka waran dad yar ah siin dadkii ay dad yar ah waxaan dad xanuunsanaya ma haystaa dad yar ah waan nahay ma gaban karo ilaahay khayr raashina kan oo la siiyey saaka 67 qoys oo dhawaantan soo xirooday ayaa si weyn ugu riyaaqay raashinka ay maanta degmadan Ceelbu gudaheeda isku tashiga ay sameysay ay ku soo gaarsiisay muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa degmadan Ceelbu gobolka Sanaag waxaa laga ururinayay raashin iyo lacag oo markaasi lagu taakulanayo dadka danyarta ee abaaruhu ay waxyeeleeyeen waa Axmed Cabdillaahi Ciise Axmed Cashuur telefishinka caalamiga Soomaali News TV
degmada ceelbo ee gobolka Sanaag.